سنما رمضان تجلى وابتسما طوبى بشتاني وبل أن ربنا لبا وح إن نهله كو إن لهي دنبي قاعد نعفو هذا ما هي إنه يد الدنبي كررسانه dadka qaar baa bisha tan musalsalaad iyo balaa bishii uu dambiga hore iska rogi lahaa mid cusub bilaaba ma aha bil uu qofka bini aadamka ay kaslaan noqdo bilaad marna hurudow marna ma aha waa bil qofka muslimka ay ijtihaad ku jiro waa qofka muslimka ay waa bil uu dadaalkiisa xadkii kama dambaysta isku dayay inuu gaarsiiyo muxuu rabaa in ilaahay dambiga ka maydho wuxuu rabaa ajar inta ugu badan leh inuu shaqaysto wuxuu rabaa inuu ku biiro min cutaqaa'ih kuwa ilaahay naarta ka xoreynaya habeen walba naarta badh baa laga xoreeyaa bisha tan oo dhan wadaaka fi kulli layla buu nabigu yidhi habeen walba ummadda muslimka qayb ka mid ah naarta laga xoreeya inaad u dadaasho sidii aad ugu biiri lahayd kuwa naarta laga xoreeyay waxay yidhahdaan culamadu bisha tani waa shahrun litagyiir gebigeedba waa systemkaaga nololeed oo dhan inaad dib u hufto balaan cusub inaad degto acmaal gaaraa jirta uu bishan inoo sii tilmaamay waa kuwa ugu culus ee traininka lagu qaato traininada ugu culus kow dee isagu waa ramadaan waa wada garanay iyada in la soomayo waa garanay waxyaabaha ugu culus ee bishan la qabto waxaa ka mid ah نبي محمد عليه الصلاة والسلام وبشو ملك الجبريل القرآن كلا دراسين جري ملك الجبريل باوي ماذا نبي محمد يا ملك الجبريل باوحي دراسيان كتاب كالله إلى هذا الكيس إذا بشة تنبع علماء ضوي هذا وابلو قفك مسلم كي أحد حده إنه كنت دبرو إلهي كتاب كي سو فهمه إلهي محو نلشة كربه إذا بشة تاني وابلو قفك مسلم كي أحد حده ورب الإلهي وركي سفهم مرتا ربي وحا وكوش يجيو رب السماوات والأرض يا أديك قولها الله بذاتك تذكر القرآن كمرك آخرين يعني عدك لك فكرة عدك لك فكرة أديكم با إلهي لها الله قفل البقر كي سألوا لها الله وحيابا بشتا وآتك وقبل جري النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين توفروا وحكم إذا قيام الليل كتراويح دا صلاة دا بدن اللي تكرينت صلاة دا بتصطو وحيابا الاسفروا وحكم إذا بشتا آتك اللي وجود دالي أو نبي سمين جري التصدق صدقات إنه نقوح عناوين وبدنين ونطدك وحنسينه سيدا أوجد أي صحابي محولها nabigu wuxuu ahaa mid deeq badan dee asliyan baa nabiga caadadiisa waxay weligii wax la weydiiyey maya ma odhan aduu bal qiyaas qof wax la weydiiyey aan maya odhanin haddana isagoo sidaas noloshiisu ahay ayaa la yidhi haddana ramadaan wa kaana ajwad mima yakuun wuxuu ahaan jiray fii ramadaan bisha ramadaan wuu ka deeq badnaa bilaha kaloo dhan baa la yidhahdaa intuu bishaa bixiyo way ka gadisnayd وحبينتي كالريح المرسلة بهيد بحديث المامية سيدي دبايل دبانيسا دبايل ببانيسا أما دبانيسا أيوة لمدها يعني النبي عليه الصلاة والسلام قعنتي سوي فري بشتاني وبالمركات ضدك مسلمين التكافل الاجتماعي سنة حريستان فقراء وحلسية مساكين وحلسية قرابة الله حريرية طلق الله حريرية ادوال بو حلسية يا ابو النبي بيشن سمين شري وحكم ده iyadoo cibaadadiisu ay saa u badanto haddana bisha qayb ka mid ah dunidaba ka sii go'i jiray marka horeba bisha cibaada lagu jiray haddana qayb kaloo bishan ka mid ah buu ictikaaf wax la yidhaahdo samayn jiray the last days baad ku jirtaa tobankaa maalmood ugu dambeeyana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu ictikaafi jiray marka ictikaafku macnaheedu waa maxay xaaraan iyo baabkaa ka kaalaya mubaaxaadkii iyo xalaashii buu ka tegayay حتى حلال أجر لوجو قريو كتجيو أجر كوين وراديني نبغى عليه الصلاة والسلام حين طلب نكو قبل لي سمركو وطقو دو حلال وطقو أجر بالله قرا سو حديث كان نبغى شيء لكن طبعا كان مع الموضة الدنبه مع الدمر ولا قفغانية ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد بإلهين هوان كان هلا نغمنا إذن كو اعتكاف سنباليد
idan 10kan maalmood calaa'iqu dunya kullaha buu jaraya wuxuu u fasax qaadanayaa inuu umuurta aakhiro oo qura bisha ka shaqeeyo inuu 10kan maalmood umuurta aakhiro oo qura uu ka shaqeeyo waxyaabaha bishan ku badnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah ducaa ilaahay baryadiisa walidalik baa aayadda ducada ugu khaasaysani waxay ku soo aroortay maxay fii wasati aayaati sawm waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyu'minuu bii walyasta aayaadkaasi kadib baa walaa tubaashiruhunna waanta aayaadka dambe ictikaafkii ka warramaya soonka aayaadkii soonka kalena waa ka horreeya idan waxay dhexda ugu jirtaa maxay waxay dhexda ugu jirtaa ramadaanka walidaalika culamadu waxay dhahdaan waa astaan tilmaamaysa khusuusiyada ay dacwadu baryada ilaahay leedahay bishan gudaheeda daba ayuha alaxiba ilaahay wuxuuna leeyahy waan tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun kuwii cudurdaarka la siiyey ayaa haddana waxaa la yidhi wacala aladiina yutiiquunahu fidyatu طacaamu miskiin markii la yidhi ayaa haddana waxa yidhi waan tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun adigoo cudurdaar haysta haddana waxaa la yidhi waan tasuumuu soonkaa idiin khayr badan haddaa wax garanaysaan baa ilaahayna leeyahy subxaana wa tacaala haddaa wax garanaysaan haddaba ayuha alaxiba warkaygu wuxuu ku kooban yahay bisha tan soo socota in shaa allahu tacaala diyaargarowgeennu ha noqdo sidaynu ilaahay ugu noqon lahayn rabbi ugu xidhmi lahayn aakhiro ay u noqon lahayn taargetkeenna ugu weyn iyo saynu cadaabkeeda uga badbaadi lahayn janno ilaahay u weydiisan lahayn oo u geli lahayn bisha tani markaa ha noqoto daal badani waa inuu kaa muuqdaa oo ah faidaa faragta fansab ilaahay daacadiisa iyo cibaadadiisa inaynu ku daallo ee bil kaslaamnimo badan ay naga muuqato laziness bilaynu qaadno maaha ee dadku caajisa waan soomana qof walba idhaa nafta ka sii baxdo ee waa bil aad u baahantay waa tababar baad gelaysaaye 11 biloodoo dambaad usii sahay qaadanaysaa rabna laba wax 11 horena dembigoodaad iska maydhaysaa kow in ilaahay dembigaaga sii saha qaadanayso cafaariiddii waaweyneed ee abaalisadii baa lagugu soo dayn doonaa markay dhammaatay saad isaga celin lahayd salaad iyo haddaad traininka ugu sii jirta dembiga hore iska rogi lahayd dib ugu duufsan lahayn iyo kooxdiisa ma aha bil idan haddaad bisha lafteedii dayacanto kaslaan noqdo dee waa waad wada dayacmaysaa marna hurudo marna wuxuu leeyahay man xurim ma aha man xurima khayru qofka muslimka ee ijtihaadu ku jiro ama uu aamin u leeyahay jibriil oo leh dadaalkii ramadaan u soo gasho farsala oo ay dhammaato walam yughfar lahu uu leeyahay wuxuu rabaa afka ciidda hadda wuxuu rabaa in ilaahay dembiga ka maydho ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inta ugu badan la inuu shaqaysto inta gaadha bisha wuxuu rabaa inuu ku biiro min cutaqaa'ibtee ka faa'iidaysta kuwa ilaahay naarta ka xoraynaya ilaahay ugu dhawaateen rabbi naarta badh baa laga xoreeya sallallahu alayhi muxamed wa alihi wasaxbihi wadaaka fi kulli layla buu nabigu yidhi habeen walba ummadda muslimka qayb ka mid ah naarta laga xoreeya inaad u dadaasho sidii aad ugu biiri lahayd kuwa naarta laga xoreeyey waxay dhahdaan culammadu bisha tani waa shahrun litaghyiir gebigeedba waa sistamkaaga nololeed oo dhan inaad dib u hufto balaan cusub inaad degto acmaal gaaraa jirta uu bishan inoo sii tilmaamay waa kuwa ugu culus ee traininka lagu qaato traininada ugu culus kow dee isaga waa ramadaan waa wada garanay iyada in la soomayo waa garanay waxyaabaha ugu culus ee bishan la qabto waxaa ka mid ah nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa bishuu malakul jibriil qur-aanka la daraasayn jiray malakul jibriil baa u yimaada nebi maxamed iyo malakul jibriil baa waxay daraaseeyaan kitaabka alle ilaahay hadalkiisa idan bisha tani bay culammadu yidhaahdaan waa bilu qofka muslimkii u xidhxidho inuu ku tadabburo ilaahay kitaabkiisa oo fahmo ilaahay muxuu nolosha ka rabaa idan bisha tani waa bilu qofka muslimkii u xidhxidho warbal ilaahay warkiisa fahm horta rabbi waxa uu kuu sheegayo rabu الsamaawaati wاlard ayaa adiga kula hadlaya bidaatig dadka qur-aanka markay akhrinayaan cid kale ka fekeraan cid kale ha ka fekerin adigunbaa ilaahay la hadlaya qof walba gaarkiisaa loola hadlaya waxyaabaha bisha tan uu aadka u qaban jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ummad muslimiinta uu faray waxaa ka mid ah dee qiyaamu leylka taraawiixda salaadaa badan ee la tukanaya inaad salaadaha badsato
waxyaabaha la isfaray waxaa ka mid ah bisha tan aadka loogu dadaalayo oo nebigu samayn jiray atasaduq sadaqaadka inaynu inagu wax cunnaa baynu badinay inaynu dadka wax cunsiino sidaa awgeed ayuu saxaabigii muxuu lahaa nebigu wuxuu ahaa mid deeq badan dee asliyan baa nebiga caadadiisa waxayd weligii wax la weydiiyey maya ma odhan aduu bal qiyaas qof wax la weydiiyey aan maya odhanin haddana isagoo sidaas nolosha